ciidamada ammaanka ee kantaroolka magaalada Boosaaso ayaa gacanta ku dhigay gaari waday bacaha wax lagu qaato oo horey looga mamnuucay deegaanada Puntland. Axmed Nuurne ayaa inoo faahfaahinaya warkani. ciidamada kantaroolka Boosaaso kaashanaya kuwa furtada wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa gacanta ku dhigay gaari waday bacaha madow iyo kuwa khafiifka ah wax lagu qaato iyadoo horey gabi ahaanba Puntland looga mamnuucay bacahani. gaarigan waday baca ayaa ka yimid magaalada Kaalkacyo isagana soo maray kantaroolada u dhaxeeya Boosaaso iyo Kaalkacyo ugu dambeyntiina lagu qabtay kantaroolka magaalada Boosaaso. taliye ku-xigeen kantaroolka Boosaaso Barkad Cali Xasan ayaa ka warbixiyay sida ay u qabteen gaarigan waday bacaha madow iyo kuwa khafiifka ah ee wax lagu qaato horena Puntland looga mamnuucay. shalay markay ahayd 4 saac subaxnimo waxaan qabanay jimcadii gaarigan sideed boolka oo siday bacahan faraha badan oo ay dhaxda ugu jireen lagu soo qariyay waxaana laga soo raray Gaalkacyo ciidanka kantaroolka iyo madaxdiisa ayaa qabtay markii dambeetana waxaan u sheegnay saraakiisha xukunta iyo dawladda oo gobolka insha Allah iyaguna way nagu qarafsiyeen in la qabto oo shariicada la horgeeyo saas baan u qabanay wixii kale oo la soo qariyo oo noocyadaas oo kale toona insha Allah iyagana saas iyo si lamada baan u soo saareynaa una qabanayna una baarayna hadii Ilaahay yiraahdo beeshana u joognaa una taaganahay una shaqaynayna hadii Ilaahay yiraahdo. agaasima ku-xigeenka waaxda furdooyinka wasaaradda maaliyadda Puntland Yaxya Maxamuud Siciid ayaa dhankiisa sheegay in horey looga mamnuucay Puntland bacahani sida oo ogtihiin horey dawladdu waa u mamnuucday in bacaha kontrabanka ah in dalka soo galin bacahina waa la qabtay waana lagu guuleystay waa u jeedaan in waatu halkaas iyo 200 oo kartoon xabo waana maanta waxaan naga soo qayb galay wasiirka xogeenka dakhliga oo isaguna qayb weyn ka qaatay wasiirka xogeenka dakhliga wasaaradda maaliyadda Puntland Maxamed Jibriil Caateeye ayaa isagoo goobta ku sugnaa isagana waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la qabto waxa laga mamnuucay Puntland iyo waliba habka loo mari doono marka qorshaha bilaabmaya dadka hadda aan ogeysiinayno in baabuurkii halkaas soo mara laga shakiyo ama rarweysida oo boolotadiisa lagu soo cashuuray oo soo qaato hadii kale xamaali baa halka degaya xamaaligoodii lacagta loo dhigaya baabuurku wala dejinaya hadii laga helo waxaan booloto sax wadan kontrabaan bay noqonaysaa dib baa loo cashuuraya boqolkiiba dheeraad la saaraya ganaax baa lagu daraya dareewalka wadana wuxuu noqonayaa dambiile ka qayb qaatay badeecadaha la qarinayo ama cashuurta la dhaafayo mar labaad baan u mahadnaqayaa ciidamadii iyo furdooyinkii iyo cashuuraha iyo gobolka iyo qaybta iyo dawladda hoose oo guddigoodba wax kantaroolka Boosaaso ayaa kan kaliya ee inta badan lagu qabto maandooriyaasha iyo waxyaabaha Puntland laga mamnuucay isla markaasna soo mara kantaroolada kale ee ku yaala magaalooyinka waaweyn ee Puntland. Axmed Maxamuud Axmed warbaahinta SBC Boosaaso.